sarkaal baydhabo ku sugan ayaa u hanjabay aadamadoobe iyo golihii wasiirada ee dhowaan uu soo saaray kadib markii mid ka mid ah ganacsatada hubka ee magaalada baydhabo si rasmi ah ay uga hor yimaadeen amar ka soo baxay wasaaradda amniga wararkii ugu dambeeyey xaaladda baydhabo oo qasan iyo sidoo kale amaro degdeg ah oo la siiyey saraakiisha ciidanka ee gudaha magaalada ku sugan si ay u soo qabtaan ninkan ganacsadaha ah ee weliba hubka ka ganacsada wararkii ugu dambeeyey ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa lafta gareen oo xaalad aanan la malaysan karin ka dhex abuuray aadamadoobe iyo rag saraakiil ah shaki xoogan ayaa jira xogahaas iyo kuwa kale ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal soo dhawaada haddii ay tahay markaa kugu horreysay aad soo booqato waxaan kaa codsanaynaa inaad saaxiibada la sii wadaagto muuqaalkan meel dheer nala gaarsiisaan sidoo kalena qaybta hoose ee faaladana aragtidiina nagula wadaagtaan janalkeenana subscribe dhahataan halkan waa nabad aniguna waxaan nahay cumar guux mar kale soo dhawaada saaxiibayaal muxuu yahay qorshaha lafta gareen baydhabo uu keenay ee hadda ay isaga hor yimaadeen aadamadoobe iyo ganacsatadii hubka ee magaalada baydhabo ee gobolka baay ninka lagu magacaabo cadow aadan nuurow waxa uu ka mid yahay mid ka mid ah dadka ugu miisaanka culus ee dhinaca hubka marka la fiiriyo magaalada baydhabo awood ku haysta sidoo kale maanta waxa uu soo bandhigay cudud ciidan iyo sidoo kale awood sheegasho waxa lagu tilmaami karo oo ah in marnaba uusan raalli ka noqon doonin in magaalada baydhabo ay noqoto meel isaga lagu baacsado iyo sidoo kale ragga la midka ah intaba magaalada baydhabo waxa ay ka saareen lafta gareen ninkan iyo ninka hadda madaxtooyada loo dhiibay ee cabdiraxmaan nishow la yidhaahdo iyaga oo weliba buur hakaba inta ay tageen soo aas-aasay maleeshiyaad hubaysan oo qoryo nooc kasta leh meel laga keenan aanan la aqoon laakiin qoryo cusub ahaa oo qaarkood xitaa la wariyey in dhinaca dhulka la mariyey oo halkaasi loogu geeyey ay la soo baxeen ugu dambeenna duulaan cir iyo dhul ah oo laga soo qaaday buur hakaba ay baydhabo kaga saareen madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo hadda baydhabo duleedkeeda ciidamo ku haysta waxaase la werinayaa in saacadihii lasoo dhaafay amaro kala duwan ay jireen kaasi oo ahaa in guud ahaanba hubka yaal magaalada baydhabo si deg deg ah loo soo ururiyo oo ciidanka dowladdu ay la wareegaan hubkan laakiin waxaa la tilmaamay hub ururintii in ay gaartay mid ka mid a ragga ganacsatada ah ee hubka ka ganacsada lafta gareenna horey ula dagaalamay muddo 3 maalmood ah baydhabo gudaheeda dagaal ka socdayna ugu dambeyn lagu kala adkaan waayey oo taasi ay keentay inay magaalada isaga baxaan dhinacyadan oo duulaan ay ka soo qaadaan buur hakaba oo ugu dambeyn baydhabo ay kula wareegeen malaaqan oo la yidhaahdo malaaq cadow aadan nuurow waxaa isaga oo shir jira-id ku qabtay magaalada baydhabo uu si cad u sheegay in aadamadoobe dhowaan wasiiradii uu magacaabay xubno si gaar ah u bartilmaameedsanaya ninkaasi ay jiraan waxaana uu fariin u diray aadamadoobe taasi oo ah in si deg dega arrintan uu u soo farageliyo haddii aysan dhicinna baydhabo aan laysla joogi doonin oo halkaas ay ka dhici karaan dagaallo ama iska hor imaadyo toos ah oo dhexmara maamulka aadamadoobe uu hogaamiyo iyo sidoo kale ninkan sarkaalka ah ee la yidhaahdo cadow aadan nuurow oo ka mid ah malaaqyada gudaha magaalada baydhabo waxaa si toos ah loogu tiriyaa ninka ugu awooda badan ee dhinaca hubka marka la fiiriyo magaalada baydhabo waxaana xogaha iyo wararka aan helayno ay sheegayaan in haddii arrinta sidan ay kusii socoto oo aadamadoobe wax faragelina uu sameyn ay faraha kasii bixi karto dagaalna uu qarxi karo isla sidaasi oo kale shir jaraa-id oo uu baydhabo ku qabtay oo uu ka hadlayey waxa uu si cad u sheegay in aysan marnaba u dulqaadan doonin in la handado loo hanjabo sidoo kalena loogu goodiyo hubka dowladda iyo shaarka dowladeed taasi beddelkeed waxa uu sheegay in hub ay haystaan ciidan haddii ay noqotona uu haysto haddii shacab la yidhaahdana uu haysto taasi oo ka dhigan in halkii ugu dambeysay ay isla gaareen aadamadoobe iyo sidoo kale ninkan la yidhaahdo malaaq cadow aadan nuurow oo ka mid ah malaaqyada gudaha magaalada baydhabo in badan oo ka mid ah ku sugnaa sidoo kale waxa uu sheegay in haddii ay dhacdo inuusan soo faragelin aadamadoobe wixii mas-uuliyad darro ah ee ka dhashaa isaga uu qaadan doono haddaba waxaan idin fasixi doonaa khudbadda halkaasi uu ka jeediy ama shirkan jaraa-id oo halkaasi uu ka jeediyo si toosa ugu faahfaahiyey waxyaabihii halkaasi ka dhacay iyo sababaha ugu weyn ee xilligan loo baacsanayo iyo guud ahaanba waxa uu ku tilmaamay in ciidankii laga geeyey muqdisho oo halkaasi ku sugan inay yihiin dad raba inay iska hor keenaan bulshada magaalada baydhabo iyo maamulka halkaasi ka jira ee aadamadoobe uu hogaamiyo haddaba aan wada daabano khudbadiisa والله ما أقول هذا ما نقول هذا تون في شيء كده قالني دمنيو أنا أقول دمني ولني تاي في دوم ما نقول هذا دون ما نقول هذا ما يلنا ما ملك إن دوم قال جيوجي والله أنا ولا شيء ما قالوا والله كان يملا أنا قبيلة إيه فرقة إيه والله ولا شيء ما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم
أنا ودوي نور والجماعي كان عسي لنجاية شرجرة كلا شرجرة قلنا شركان جرة ما كسب سنيا أرنتن ومقالدن يسوق خلا أنا نجتي ورجرة أرنتن أنا نجتي سوق خلا دبكي مقالدن كتني سوق بالله ويا فدن ولدت كيريدي الروغان حتى أنت كيريدي البازودان إلا أنت صبرين السلاي أنت اللي جاي صبرين ودوم صبران قرآن من الله حد إني والله هذا النوع هذا اللي أكان مفني وايني إني والله أنا كلم من أدرس برامج ديارنا أنا لانقول يسدي هذا لانقال كفولي فضاو مدرس ولا أتو ودان نحن أتو لون ودان ولا ودان تيوري يديدهم حتى ونفولي أن فضايا ما ندرس دونت ما ندرس كل ما ينقرأنا يردر إذا دولمو هدي بدنا كيسن هور دي أي ولوي ما لنا دولمو هلا فوي هدي دولمو لنا دافنا تدرى هذو دولمي ملك ديرتي حتى دولمو جلوه والبام بلاون والبلان ده ناتلي بلالو رو يا دولمو جلوه هدي دولمو هذا أفواي بكم ملك دورنا سيده ما شايفنا مسؤول دولت سمدونا شهادا ما شايفنا إني والحلي كلا هدي الفضاء نقولني شيء فلان له يكور مثلاً ولا جل هذا كور مجرى ترى بالنا الناس مديون لامبر يسوى يري ثم الجواب مقاي شغلي والود شغلي جوجوني مال جوجين وكلا لسيود ما الشيء أنا ذات كوده وزيري ذكم ذا بيني وكونكم ذا نكون وكونكم ذا نقدم بيا الشيء أنا وزيري فلان وكونكم مروكس ذا هرجعين وزيري ثاني هور والله في كرندوليس بربريان لكن جيهم حتى لكن بشيء ودان شيء هذا ما إن شاء الله إن مقاس كوارق على تصالات وسلاح دخل فرد كير كيوي مو والله ما أقول هذا ما نقول هذا دون كيش اللي قد قالني قدم النيو تدنا قدم ذي ولني تاي كي دون ما نقول هذا دون ما نقول هذا ما لنا ما ملك إن دون مقول جيوجي الله نيمان ولا شيء مقاله الله كان يملا نقول قبيلة أي فرقة أي وأنا ولا شيء مقاله ملنا عدالة هالك شيء هو عدالة لواي أنا نقول بدني ملا أنا دجال كيجون ملا أنا بدل الله تين ملا أنا كاس نفتول نفلا ما لنا ملا دجال ولا تقول ده أنا نقول ديو ملا أنا يدين نقول ديو ملا أنا بس قبل نقول ديو ملا ما شيء أنا بقول قبل الشيء هذا مدو ini wasiirada arda burburiya la hadala wasiirada la hadala burburkii lafta garan hadamki ka rideen hatan dabkii wadaan in taladu iska kaatan nimankan isku ilaali la tashabu iday way arag idan dargarada la tawada nimankan ba buutal baradka dawladda hor burburiyeen laakiin burburis kala wadaan shacabkiisu hor ka horsheenayaan inuu iska ilaaliyaan sheegan wasiirada dabku wadaan إذا سكر على فرلا سا تبلوا الدولمي تموزير الأمر تموزير الدولمي الخصوبي أرجعين حتى نقول كنا الله بواي وكي شرعيو حتى نكيلايو حتى نوكلو تنقدر مع دريرت من شاعنا مع ملك شاعنا مدوينا شاعنا يعني أنت كسر الجوجي دولمي لا تعرف وزير عندك كلا الدولمي لا فدا لا هذا سوقهم ولا في اليوم هل الشيء اللي نشان هل قفنا نقول هدي كوي ما ولا نسكن نقل أنا ملون الرجال يون الرجو لما السنة سوقهم ولا كدودني ولا على واي لبنا عند مدي لبنا عند عوامي لبنا عندي ما ملوان ماكم حتى نبكي بشيء لوي ما شايفنا إني ما ملكون بربرين ما ملكون نقول كويس نايم لكن أنت تبولان في الروان هذي نبكي دافعانه بس دفعنا ولا أنا نقعدنا لنا مقابلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haddii dalal maanta la soo gaartay subscribe noo channelkeena qaybta hoose ee faaladan aragtina nagula wadaaga saaxiibadina la sii wadaaga muuqaalkan si uu meel dheer u gaaro halkan waa nabad anigoon waxaan Cumar Guux